sirta nolosha waxyaabaha ay bartay waxa ka mid ah an asmaca min annaasi laacan dadka baniaadamka in iyaga wax ka maqlo oo waxa laga sheegaya aanan u qaban oo u dhageysan baniaadamku aad bay isugu xadgudbaan intaa waxbay iska sheegayaan qof baa jira wax uu beri ka yahay baraa'ata min dami ibni yacquub baa la yidhahdaa siduu yeygu beri uga ahaa nebi yuusuf dhiiggiisa calayhi salaam iyagoo beri uga ah waxyaabo badan lagu eedeeyo baniaadamku way isdulmiyaan waxbay intaa iska sheegaan hebel waa sidan heblaayo waa sidan dadka weligaa ilaa aad qofka ama shaahid ku aragto ama aad wax la xaqiiqsan karo oo markhaati runa yani ku hesho ama uu isaguba kuu qirto sida dee maxaakimta sharciga ah iyo qadaaguba yahay weligaa baniaadamka laguma xadgudbo wax laga sheegayna looma qabto in badan ayaabay dadku arrimaha noocaasa ku khaldamaan imaamu shaafici raxmatullahi calayhi baa waxaa la weriyaa wuxuu maqlay nin kale ku dheganoo wadaada oo tabaqmaha calashanaya markaasuu shaafici ku war ninka maxaad ku haysataa markaasuu yidhi niyo wuxuu ku kaadshaa sara joog markaasuu shaafici ku yidhi axaadiis baa ku soo aroortay haddii loo baahdo in sara joogga lagu kaaji karo laakiin xaaladda fiican ay tahay in fadhiga lagu kaajo markaasaa wuxuu yidhi haaye waxa dhacaysa inuu dhinaca dabaysha ula jeestay ku daadaadayso markaasuu ku yidhi adu miyaad aragtay isagoo dhinaca dabaysha ula jeedsanaya ku daadaadanaysa markaasuu yidhi balaa laakinaha sayafcal buu yidhi maan arkina laakiin way u badan tahay inuu samayn doono xagga u jeedsan doono ay u badan tahay baniaadamku way isdulmiyaan waxbay iska sheegaan way isnabaan been bay ishugiyaan sirta nolosha waxaa ka mid ah baniaadamka dadka wax lagaaga sheegayo la fadhiiso warayso waxaad haysaan dheh haddaad markhaati iyo caddaynayo dee wax xumaana ku aragtana waa halkeeda laakiin dadka ha u qaban dadku waxay sheegaan